السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin Mawlid Kuban oo mar kale idinkugu soo laabtay tutorialkayga caawa wuxuu noqon doonaa sidee ayaa wifi-ka ama internetka gurigaaga networka gurigaaga aad ugu xiran kartaa laptopgaaga. waa sidaan ka dheregsannahay ama aan ognahayba waxa waaye qof waliba wuxuu leeyahay computer gurigu yaal ama laptop. marka computer guriga ku yaalo waxaa laga yaabaa inaad isticmaashid wired waxaa la fiilada ku xiran modemka. laptopga wuxuu u baahan yahay wireless ama wired sometimes haddii ay iskugu kaa dhow yihiin modemka meesha ku yaalo iyo laptopka meesha ku isticmaalaysid, laakiin waxay dadka ay doorbidaan inay wireless isticmaalaan si ay flexible ugu noqoto qaadista mobile laptopgiisa. marka waxaan sameynaynaa cashirkayga asigoo aan inkastoo ay dadka ay badana ay wada yaqaanaan haddana dad ayaanan aqoonin. sababtaas ayaa ugu kaliftay inaan usoo doobo videogan. waxaan dadka isdhehen waxaan wax iska easy maxaa uu usoo doobo wixii aad taqaanid dada ayaan aqoon. aniga uga faa'iideynaya dadkaas ayaan waxaan jeclahay inaan idiin dulmaro ama demonstration idinkugu sameeyo sida ugu xiran lahayd. wifi-ka markii aad raadinaysid waxaad tegaysaa meeshaanito allaha connection, meeshaas ayaa ku dhufanaysaa. wifi-kayga waa kan ugu koreeyo, iguma xiro laakiin wuu igu xiraa jira, laakiin hadda waa ka jaray si aan u tuso steps-ka ay raacayaan dadka ay ku cusubtahay ama raba inay ku xirtaan laptopgooda si guriga meel walba ay laptopgooda ay ku isticmaalaan ay ugu fududaado inay qad ku helaan. kana ku dhufanaysaa connect ayaa dhehaysaa. modemkaygana waxaa waaye shell ama providerkayga shell waaye internet connectionkayga. marka waxaad i weydiinayaa security code ama passwordka networkgayga uu leeyahay. marka passwordkayga ayaan gelinayaa. ma la arki karaayo sababo jira awgeed oo ama security reasons. next ayaan leeyahay, yes ayaan dhahaa. inta ayaan ka arkaa inuu ku xirmo in kale oo igu xirmo saa ujeediin connected ayuu yiraahdaa. marka cashirkayga intaas ayuu ku kooban yahay. walaalkiin Mawlid Kuban idin leh like, subscribe, share and comment-kan ila soo wadaag si mustaqbalka ayaan waxyaabo badan oo aad u baahan tihiin aan ogeyn aan idinkugu soo gasho. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.